السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتا qaaliga ay ku xiran channelkeena YouTube ee Garato Channel isku soo noqod wanaagsan maanta waxaan qaadan doonaa casharkeena sagaalaad ee nagu baranaynay sida loo sameeyo waxyaabaha quseeya Photoshop-ka maanta waxaan maraynaa sida loo sameeyo loogooyinka sidaan casharkii horeba ku soo qaadanay loogooyinka dadka Soomaalida isticmaalaan waxay u badan yihiin loogooyinka wareegga ah sidaas ay tahay waxaan sameyn doonaa loogo wareeg ah maanta hadduu Ilaahay idmo ku soo dhawow casharka marka koowaad waxaan ka hadlaynaa horta logo muhiimadeedu waxay tahay horta logadu ma aha inay fool xun tahay inay qurxan tahay muhiimaddu waxa weeyaan horta inay soo koobayso macnaha meeshan inay tahay iskuul ama goob caafimaad inay logadu macnaheedu soo koobayso logooyinkan waxa u soo qaadanay dabcan design-ka ayaan doonaynaa inaan ka ogaano qaabka ay u dhisan tahay logo walbaba waa ujeedaa logadan inay tahay mid iskuul iyo mid ay tahay mid isbitaal isla marka waad kala garanaysaa sababtoo ah badanaa loogooyinka waxaa marka iskuul yihiin waxa loo isticmaalaa buug markii caafimaadka goobaha caafimaadka yihiin waxa loo isticmaalaa calaamadan iyo calaamadahaas ayaguna sidoo kale waa loo isticmaalaa markii aad waa inaad la socotaa marka waaqica jira markii aad doonayso inaad looga samayso loogada aad samaynaysaan waa inay noqoto mid ku bees garaysan xarunta aad u samaynayso loogadaas loogada muhiimadeedu waxa weeye badanaa loogooyinka waxaa loo isticmaalaa markii tiimbaraha oo kale waraaqadaha lagu dhufanayo kale loogada waa inay wareeg noqoto dabcan markii loo baahan yahay in la tiimbareeyo meesha marka maanta anagu waxaan baranaynaa qaabka loo sameeyo loogadan waxaana sharxi doonaa loogadan aan samaynay waana samaynaynaa insha allah loogadan sida u samaysan tahay aad ujeedid waxyar inaan soo dhaweeyo loogadan sida u samaysan tahay aad ujeedid ayaan doonaya inaan samayno ururka jaamiciinta Soomaaliyeed ee Rajo ayaan u sameynaynaa loogo dabcan waa urur anagu aan mala awaal oo hadda anagu aan samaynay magacaas un baan ka qaadanay bas inuu jiro iyo inuusan jirin ba allahu aclam marka loogadan ayaan jeclaanay maadaama ay wareeg tahay waxyaabahan meesha ay yaalaan insha allah waan ku tusi doonaa marka koowaad waxaad tagtaa file kadib waxaad doorataa new markii aad dooratid halkan waxaad ka dhigaysaa 5000 sida hore in ku sheegnaba loogadu design-ka aad qaadanayso waa inuu labada gees ka lekaado halkan waxaad ka dhiganaysaa 300 resolution-ka 300 ka dhigo waa intaas kanna sidoo kale aska ahaado asna halkaas kadib waxaad leedahay grade ku samee waa intaan markii ku soo baxdo loogada aan samaynayno waa midaan ayaan samaynaynaa waxaan u baahannahay marka koowaad inaan isticmaalno laba sirkaladan aan ku tusiye waa midkan ellipse tool ayaad isticmaalaysaa oo laba xabo ah kan koowaad sidan oo kale u fidi kadib waxaan ka dhigaysaa dabcan midabka waxaa ka dhigaysaa cagaarka aad tusaale maadaama aan cagaar isticmaalnay stroke-na waad u baahan tahay waxaad ka dhigaysaa stroke-giisa madow inuu ahaado midabkaas madow dooro halkan waxaad ka dhigaysaa meeshaas 8 intaas markii aad ka dhigtid oo ellipse-gaas uu noqdo 8 dabcan waa meelahaas oo kale maadaama in u baahana inuu soo weynaado waxyar gadaal u celi intaas un ku ekee halkaas baad ka fiirinaysaa dabcan waxa aad samaynaysaa inay wax weyn yihiin iyo wax yar yihiin balaas adoo isticmaalaya soo dhawee waxaa u baahan tahay haddana mid kale oo maadaama ii dooraya kan ellipse tool kale ama circle-kaas oo mid labaad ah dabcan intoo kale keen hadhowtii waan ku celin doonaa meeshiisii midabka waxaan ka dhigaynaa caddaan waa kaa halkaas baad tegaysaa kadib wax yar adoo haya oo kale soo jiidaysaa intoo kale keenaysaa dabcan waa intaas labadaas circle labadaba stroke waa ku jiraan midna stroke-giisu waa aan dhehe background wuxuu leeyahay buluuga midna waa caddaan waa intaas caddaankii waa sameynay buluugii waa sameynay waxaa noo dhiman marka inaan sameyno intaan gudaha iyo wax soo gelgelin marka ama gudahan ku hormaraynaa insha allah waxaan meeshan u jeedid geedkan labada caleemood way diyaarsan yihiin loogadan ayaduna sidoo kale koofidaas way diyaarsan tahay waxaad tegaysaa file waxaad tegaysaa open baa leedahay maadaama transparent aan u baahan inaan ka dhigno kadib waxaad leedahay open kan dooro
soo geli loogadii waa tan aan idhaahdee geedkii waxaan u baahanahay transparent ka dhigo transparentiga dhowr jeer aan soo sheegnay halkan tag magic ayaad dooranaysaa kan ugu hooseeya kadib halkan baa imaanaysaa 2 jeer ku dhufo bes soo qaad marka adoo meelahaas qabanaya kanoo kalan soo qaad dabcan intoo kalan keenay aad buu u yaryahay marka u yaryahay sidaan u weyneeyey waan sheegnay waxaad isticmaalaysaa control t haddii aad casharadii hore la socotay waxaan waxa weeyaan hal mar oo aad aragtidba waad ku baashaalaysaa dabcan waxba adiga dhib kulama laha laakiin waxaa daran inaad tahay qof cusub oo casharka koowaad aad daawanaysid uu noqdo iskuna dayaysid inaad tijaabisid waa kan control t baa eri geesaha waa ka la ekeysiyey waa kaa maxaa iga maqan aan ku laabto casharkaygii kale waa kan loogadaas baa iga maqan ayadana kan waa ka dhamaystay transparent waa ka dhigay waxba waaba iska bixiyay asaga dhanba waxaan leeyahay file haddana waxaan leeyahay open waxaan dooranayaa waatan loogadii iyaduna igu diyaarsan meesha transparent ka dhig halkan oo kale imow kan ugu hooseeya ku dhufso halkan imow kilig geesahaas bixi geestan kala bixi tan bixi tanna ku dar waa kaa soo jiid marka halkan oo kale ii keen control t oo anaga weynaystaan rabaa waan weynaystay dabcan intaan oo kalan keenay markan waad u jeedaa labadan intaan waa dhammayn waxaan u baahanahay inaan tagno fartii halkan waxaa ku qoran ururka jaamiciyiinta Soomaaliyeed ee Rajo fartan ayaan u baahanahay inaan haddana sidaas kale u qaroofino kadib waxaan tegaynaa t caadi aan dooranaynaa halkan oo kalaan iska nimid dabcan waxaan qoraynaa markaasi fartaasi leexitaankeeda dhib badan ayaad ka maraysaa dabcan waan ogahay intaan baan u baahanahay ururka jaamiciyiinta Soomaaliyeed ee Rajo inta marka highlight sidaad ku saarto waxaad tegaysaa halkaas web text ARC meesha ugu koraysa dooro kadib intaas igu ekeeba aan soo jiido halkaas ayaan u baahanay inaan saaro waxaan u baahanahay isticmaalo markaan control t geesaan ka soo aruurinayaa waa soo yareynayaa markaan weli haddaan rabo mar kale waa ku laaban karaa intaas markuu ii soo noqdo markaan sidii kale t mar kale ayaan ku laabanayaa kadib highlight baan saaray si meesha ay kugu istaagto waqti badan waa inay kugu qaadatid waa kaa soo jiida haddana markaan waxaan u baahanahay haddana control t inaad tago si geesaha xeer aan uga soo aruuriyo sidaan oo kale haddana waa kaa ku laabo mar kale waxaan tegayaa mar kale intaas waa ka badin kartaa kolley inta shardi maaha ilaa aad qoorta dhan u leexisid baad geeni kartaa xadadii aad doonto mar kale aad waxaan isticmaasho waxaad ku darsanaysaa control t si aad geesaha in yar ugu soo aruurisid ilaa uu ku istaago maadaama waxaan qoraynaa ay yihiin wax badan intaa dabcan markaan waan keennay intaas markii aan sameyno waxaan u baahannahay inaan hadda tagno mar kale aan ku laabto waxyaabahan meesha ku qoran 1 iyo 2 labadaas meelood ayaan u baahanahay labadan meelood waa macquul inay ku jirto photoshopkaaga waxaad tegaysaa meesha ugu qoran tahay customer shape tool halkan waa midkaan dabcan isticmaalay flower 5 ayaa lagu magacaabaa kaas ayaad dooranaysaa kaas markii aad dooratid meelahan oo kale keenaysaa halkaas waxaad ka dhigaysaa midabkiisa madow halkan mid kale asna sidoo kale ku laabo customer shape tool waxaad ka dhigaysaa madowgu waa ii saaran yahay waa kaa halkan waa 2 farood aan soo gaabiyey
js waa dabcan magacyadan aan ku sheegaya kuwaas kale waa tida caadiga lagu qoray tida caadiga oo kale tegeysaa u j dhibic baa u dhaxaysa j s r waa halkaas oo kale weeyaan macna muhiim saas maaha kuwaan marka hadda waxoogaa waqti inaad gelisid waysaa uli hadda mugtahay si fiican uma toosa sida kuwaan kale uma toosna ayaga waa inaad gelisid waqti sida saas oo kale ugu leexin lahayd meesha aad ka leexinaysidna waa dabcan intaas oo kale highlight saar kulli waxaad tegeysaa t in yar weeyaan meelahaas oo kale inaad toosid weeyaan iyo halkaan oo kale boldiga labadaas farood oo kale markuu kala tooso waa kan oo toosaba waa intaas weeyaan isku day marka oo tijaabi waad ku mahadsan tahay daawashadaada casharkan cashar ku xigana la soco insha allah kuwii hore haddii aad cusubtaan kuwii hore soo daawo groupka telegramna kusoo biir iyo kan whatsappka ayagana waxaan kuu soo diri doonaa waxyaabahan hadda aan isticmaalnay iyo loogooyinka sida kuwaani loo sameeyey wax tijaabi oo wax samee insha allah kulley inaad wax samaysid haba xumaadaan ama haba fiicnaadaan waxay tahay noo tahay dhiirigelin waad ku mahadsan tahay daawashadaada